dadka Soomaaliya aan dhibno ama ku dhacno hal kama naqaneeno in la hadda mataqaana wadamo kale oo Soomaali kale oo la yiraahdo waxbay qabteen ama waxay qabteen anaga nalacay waxa way wax dibaa aragnaa dadkeena anaga waa ognahay waan u jeednaa waa maasantahay mudane safiir markana dhageystaha xiga aniga magacayga waa Faadumo Cilmi Muuse Jin boqor ku magac dheer ambassador for peace ambassadorka Maxamed Ali waa nin fiican waa nin hawshiisa ka soo baxaya waa haduusan isagu joogin asla meeshan badbaada kama dhaceen waxa dadka dawladda Kenya amaanka ay saxaysaa amaankana waxay u saxaysaa inkastoo teeda la yaraahayd iyo wiilahayd la qabanayo waxay wax su'aalaha aad rabtay inaad safiirka weydiiso ma jirtaa su'aashaas waxay tahay dadka waxaan u baahanahay safiirka waxaan u sheegayaa aan weydiin su'aalayaa wixii qaxoontiga ku jira oo mandayga in lagu geeyo xeradooda baan su'aalayaa gabdhaha umulaha ee meesha ku dhalayna in isagu u hadlo yaan weysiinaya umulaha waa in loo naxaa dadka jira isagu waa in loo naxaa way maasan tahay maamada runteed waaye anaga dadka u naxinaa dadka hadda dowladda Kenya insan ku sheegan maalin dadka la kaxay dadka aan ka reebnay oo haray oo dadka haysta taariikhda qaxootiga waraqaha qaxootiga kaas oo ah sababta u reebnana anaga dowladda Kenya iyo Soomaaliya waxaan wasiixnay UN refugee mataqaana commission ama sharciyada oo mataqaana qaxootiga kaas oo dhahayo qofka qaxootiga ah in aan qasab wadankiisa loogu celin karin maadaama haddii asaga uu raali Kenya kaliya marka qofka soo qaxootiga halkan jooga ama waraqo haysto annaga waa u doodeynaa inay halkan sii joogaan in xiriir qaxootiga aadaan in magaalooyinka ay joogaan mana qaadayno marka taa waa hawsheena waaye waana sameynaa insha Allah su-aasha kale ku weydiis waxay in gabdhaha umulaha iyo caruurta iyo dadka waayeelka oo kale arrin ama taxadar ama qiimeyn gaara lagu sameeyo oo laga soo saaro meelaha ay ku silacsan yihiin waa run waaye maalin dhaweyto dadkii la qaaday oo loo qaaday xamar ama xamar aaday waxaa ku jireen hooyooyin hooyo mataqaana gabadheeda yar loo keenay oo meesha ku jirta ayda habeenkii anaa u dooday oo mataqaana in aan meesha la gelin waxaa u yeeray walaasha ama qarabadeeda loo yeeray gabadheeda yareed waa laga qaaday subaxii loo keenay gabar kalena mataqaana oo itiray gabadheeda jirta 9 sano anaa kaxay gurigaan geeyey oo kusoo hayay subaxii u keenay kuwan kusoo arkay oo caruurta haystay aan u dooday saacadda kuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha oo ii ballan qaaday iina sheegay in lasii daan doono marka aad iyo aad baan ugu naxinaa hooyooyinka iyo caruurta meesha ku jirta in si fiican loo daryeelo mudane safir haddii aan su-aal kale ku weydiiyo dadka hadda lagu celiyey Soomaaliya 80 iyo dhowrka qof ahaa ku dhawaad 80 qof ahaa ma waxaa leedahay waxay ku noqdeen iyaga ogolaanshiye ka timid oo ay raalli ka ahaayeen in ay Soomaaliya tagaan dadkaas marka hore Falastiin waxay ahaayeen dad document aan wadanin dad ku jooga wadanka Kenya sharci daro dad mataqaana baasfur xataa aan wadanin anaga dowladda Kenya sharcigeeda qofka marka la qabto oo sharci daro uu qabto waxa la geeyaa maxkamad waa la xukumaa 6 bilood xariga iyo ganaax dowladda Kenya waxa ka codsanay in processkaas laga dhaafo oo dadka haddii wadankooda aadayaan in loo fududeeyo ay aadaan dadkana waa wareysanay waxaan sameynay go home ayaga ayaa miceen biday dhahay inta ku jiri lahayn station ama gaarshiro wadanka hana geeyo cid la qasbay ma jirto hore waxaa u sheegteen in heshiis uu ka dhexeeyo dowladda Soomaaliya dowladda Kenya iyo waliba qaramada midoobay kaasoo ahaa in dadka lagu celiyo ogolaanshahooda iyo aqbalaadooda dadkan marka la xiro stationka laga wadaayo sidee ayay u carqaladeynaysaa heshiiskii aad hore u gaarteen ma qayb bay ka tahay heshiiskaasi mise waa arrin kale oo si iskeeda usoo baxda iyana sida heshiiskaas ku laabanaya heshiiskaas oo dhigayay ama oo dhahayay in dadka Soomaalida ee sharci ahaan u qaba taariikhda qaxootiga ama waraqaha qaxootiga oo raba inay laabtaan dadka wato waayo oo sharciga u qaba taariikhda qaxootiga oo raba inay ku laabtaan Soomaaliya si voluntary ah in gacan laga siiyo si ku laaban lahaayeen jihaadkooda la siiyo hadda laakiin kuwa hadda oo mataqaana jeeti labada ah Soomaaliya lagu ku laabteen dadkaas sharci ma haysanin taariikh qaxootiga ma haysanin waxay ku joogaan wadanka si illegal ah taa macnaheeda maaha qofka illegalka ah ama qof kalaba in la bahdilo in looga dhaco sharci meel maaha dadkiina waa kala hadalnay haddii qofka sharci dar yahay in la marsiiyo processka in aanan lagu hayn xabsiyada maalin badan dhaqso loo sii daayo mataqaana loo fududeeyo suuqadiisa isku adi lahaa waxaa sheegtay 82 qof ee mudane safir la celiyey dabcan diyaarada lagu qaada qarashka diyaaradda qaramada midoobay bixisay dowladda Soomaaliya mise dowladda Kenya iyada iska musaafurinaysa dowladda Soomaaliya waa mahadsantahay markana dhageystaha xiga ayaan siinaynaa fursadda
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد محمد عبد الجار صومالي كاتريست أكيد أبوان صوماليات ولنا صحفي وحان ويديلها سفيرك أمباسطورك محمد على أمريكا دان سوق وركي وحاجة مدافعينا جمهورية وصومالي في دولة فدرالك ويمدل كينيا أركان أهورو كينياتا وليبا بروسلس نسكو أركان وحان ويدينا مسؤولك مركا ودنبينتي waxaan sugayna shirkii saddex geesoodka ah ee UN-ka iyo Kenya iyo Soomaaliya ay wada galeen oo qaybta ka mudane safir ka weydiin maxay noqotay in dadka ilaa repatriation lagu qaaday oo dadka voluntary ma waxay noqotay voluntary in qatar dadka lagu qaado oo misaal isku bedesho taas waa taas su'aasheeda waayo qofku waxa voluntary u aqaana gurigiisa joogo safaarada ay yiraahdaan la qaado aniga qaxooti baan ahay taasaan waqala voluntary laakiin in yiraahdo la qof voluntary lagu qaaday taas voluntary ma aha haddii voluntary loo bedelay adaa loo sheegi doona taas waa taas talabaad waxay tahay su-aashayda ciidanka waxaa gooyay dowladda Kenya waagii Kibaki waxaa dhacday in dowladda Kenya xagal daaco ay ku soo dadka qaxootiga Soomaaliyeed ciidanka marka la gooynaayay ilaa uu ka dhaco wuxuu yaalay xaqiiskooda yaalay markuu dhaca dadka la wacay oo la yiri kaalay ciidanka qaata ciidanka waxaa nala sheegay in lagu qaadan karo bangi aad ku furo karto in carruurta iskuulka geysan karto inaad wax kasta ku shaqaysan karto ilaa shaqa dowla aan doorashada ku geli karin marka haddii dowladda walaan saxaysid wax kastoo dowladda walaan saxaysid dowladda timaado waxa kama jiraan miya maxay uga doonaysaa dowladdeena Soomaaliya waa wakiil ka tahay adiga mas'uulka ay leeyahay hadda qaranka Soomaaliya inta wakiil waa oo calanka daawurka uu soo suray calanka shanta gees xiddigta iyo bulid maxay taas ku dhacday in calanka hadda la mamnuuco oo aad ka aamusan dowladda Kenya waa salaamada munaasabad ay waa tahay maasihay hortoro arrintan oo leedin kaarka dadka qaxootiga ah in ay ka shaqaysan karaan ama ay joogi karaan magaalooyinka waaweyn dowladda ku meelgaarka hore 2006 ayay ahayd markii aan u weydiinay in dowladda Kenya ay sameysay dowladda Kenya ayaa markaan ogolaatay dadka in la siiyo annaga iyo ganacsiyada Soomaaliyeed oo deganaa waddanka Kenya dowladda Kenya waxay ogolaatay in dadka la siiyo mandate ama sharcigaas oo ay ka shaqaysan karaan kuna noolaan karaan magaalooyinka waaweyn dowladda haddii ka laabatay sharcigii annaga wada ma ogin haddii ka laabatay ayagaa sheegayso sababtay sheegaysaa waddan madaxbanaan dadkeena Soomaaliyeed waxaa marka u sheegayaa waxaa fiican in markii la joogaayo waddan ajnabi ah inay sharciga qaataan ay sharci ku joogaan midda kale waddanka Soomaaliya waddankooda waaye waa nabada mataqaanaa ka jirta way soo fiicanaysaa dowladda ka jirta waddankooda ka shaqaystaan dadka ku laabtaan taa macnaheedana ma aha in meelaha kale laga tago ama wadamada kale laga tago waddanka si sharci u joogaan safaaradaha ayaa mas-uul ka ah jaalada mas-uul ka ah annaga waddanka Kenya safaaradda Soomaaliya waddanka Kenya maanta ugu daalina inaan dadka Soomaaliyeed difaacno mataqaanaa mowqifkooda aad u mahadsan tahay mudane safir inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa barnaamijka safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi dalka Kenya Maxamed Cali Abdiko tarinkan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kale nabadgelyo